السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta saxaafaddu aad bay soo garaacaysa oo arintan issue bay ka dhigeen. Dhinaca kale marka laga eego horta wax internal problems ma jiraan xidigaha geeska. Muran gudaha ma jiro. De kooxda xidigaha geeska 6 sano jirtayba. Marka laga reebo 8 bilood oo gudoomiyaha ka ahaa. Waxa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay aad u adag tahay waliba niman caana in isku hayso oo maamusho inay adag tahay taasina ay suuro galshay iyagoo ixtiraam iyo dhiganugeyl iyo midnimo inta bay la garab taagnaa Nuruddin xaqiiqatan muddo 2 toddobaad ka hor ayaa saaxiibaday mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay ahaydey gudoomiye xidigaha geeska ka sii ahaanayn hawlaha gaarka darteed laba qodob baa arintaasina aan ka xusi karaa horta nolosha vision ka fog kan fanka ayaan kala yahay jaamacadana dhigtaa waqtigii farabadnaa xidigaha gelin jiray ee aan fanka gelin jirnay ama habeenimo u badneed ama dhinacyada nolosha ayaan jecelahay horta inaan geliyo marka laga yimaado taa qodob kale oo muhiim ah jira oo sababay inaan maxay ahaday hawsha ka yar nasto aan waxaas ka nin family man ciyaalkaygu ingiriiska ku nooleen deganayeen gabi ahaan waan ka soo raray halkan imika degan yihiin waxay u baahan yihiin waqti la siiyo waxay u baahan yihiin madrasad la geeyo waxay u baahan yihiin dugsi la geeyo arrimahaas oo dhan waxay keeneen in shakhsi ahaan aan isku wadi kari waayo hawlihii kooxda taagnaa markasta maalin kasta hawl taagan weeyaan oo ku faraxsanahay kulay toole maxay ahaday kii qabta waa kii kale rag iga karti badan baa jooga xidigaha geeskuna waa dallad waa dhalinyaro ay hibadu madaysay way jirayaan oo way isku mabda anu haddaan xilka ka tegin xubinimo kama tegin wixii tale iyo wixii tusaale waan la garab taaganahay waxaad ii sheegtay in adigu aad u gudbisay inaad mashquushay oo mashquulkaa darteed aanad hawlihii siday ahaayeen u wadi karaynin maxaa keenay bay kula tahay in iyagu intay warbaahinta ka hadlaan ay yidhaahdaan laab saalax waxaanu ka qaadnay gudoomiyanimadii xeerir baan u jabiyey niyo horta maxay ahaday dee xilgudasho la'aan bay yidhaaheen aniga kule saacad kasta hawsha xidiguhu way taagantahay waqtigii farabadnaa 90% ku lumin jiray ayaa meesha ka baxay intaan saragnaa yar intaan hawlaha kooxda ka wada hadalaa yar intaan isku nimaadna baryahan aad bay u yartahay anoo waqtigeygii aan dhinacyo kala geliyey laakiin waana rag saaxiibadayoo maxamed axmed bakaal iyo dhammaantood waa raggaan isku midnahay kii qabta waa kii kale wax kale oo intaa dhaafsiisani ma jiraan warbaahintan waxaanu sheegayaa arrintan issue maaha wax laisku hayaana ma jirto rag magac wadaa ka dhexeeyaan nahay wax wadalaan nahay wax soo wada bilaabaan nahay wax soo wada aasaasan nahay dadku xurguf iyo isqabasho way timaadaa laakiin arrintan total wax isqabsashaa iyo murana ma jirto waana idin ka mahad celinayaa maasantay abwaan khilaafaadkiinu kooxda kulay dhisan ee Soomaaliyeed ee imka caanka ee la dhageystatiin fankeeda khilaafaadkiinu inta badan wuxuu noqday sidii fanka oo uu soo noqnoqdaayo isaga laftiisa wala dhageysta dadkii warbaahinta ka daalacdaan maxay kula tahay sababaha aad intaad gudaha uga xallin kari weydeen oo warbaahinta ugu soo baxo oo ay issue laga dhigo horta wax kasta oo gudaha ku xallinaaba wax kasta gudaha ku xallinaa kooxda inta badankeeda imka way kala maqan tahayba tala kasta oo isla rogrognaa xeerar baanu leenahay wixii soo baxaa inta badan waxa gudaha iyaga iyo dibadda sidoo ugu soo baxaa way yar tahay haddana dee waa dad wada caanahoo kulley tole saxaafaddu deendhagalay ku eegaysaa waxa laga yaabaa hadalkaa aan saalayn si kalaba loo dhigo markaa wax mushkilada oo jirtaa ma jirto waa dad xidiguhu fan wadaag leh soo wada noolaa saaxiiba ah imika waanu wada joognay waa saaxiibaanu nahay ma kala tegano markaa waxaan ka hadlayaa uun
fahmayeen abwan ugu dambayn mar haddii aad aragtay culays inuu adigu ku saaran yahay waqtigaagina aad siisay ma jirtaa qoraal rasmiyaha ama is-afgarad aad ugu gudbisay oo tiri sidaasaa jirta oo kooxdii aad u sheegto ku tiri sidaa igu ogaada horta gaargaar waan ku sheegay maasiijna dhammaantood inay cid maxay ahayday ay u igmadaan waan u sheegay taasina dee cid kastoo kooxda ka mid a dee waad weydiin kartaa inaan iscasilo iyo in laga qaado wax farqi u dhexeeyaaba ma jiraan meel ma wax wada wadnaa inay meeshaasi jirtuun weeyaan way jiraysaa kooxdu way jiraysaa kooxdu waa waxaan ka midaysannahay dee xilkii iyo kooxdiina way kala wen yihiin waqti badan baa naga soo galay tac badan baan soo gelinay way jiraysaa kooxdu arrintan issue bay ka dhigeen dhinaca kale marka laga eego horta wax internal problems ma jiraan xidigaha geeska muran gudaha ma jiro dee kooxda xidigaha geeska 6 sano jirtayba marka laga reebo 8 bilood oo gudoomiyaha ka ahaa waxa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay aad u adag tahay waliba niman caana inaad isku hayso ood maamusho inay adag tahay taasina ay suuro gashay iyagoo ixtiraam iyo deganugeyl iyo midnimo intaabay la garab taagnaa nurudiinow xaqiiqatan muddo 2 toddobaad ka hor ayaan saaxiibaday mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay ahaydey gudoomiye xidigaha geeska ka sii ahaanayn howlahayga gaarka darteed 2 qodob baa arrintaasina aan ka xusi karaa dee horta nolosha vision ka fog kanfanka ayaan ka leeyahay jaamacaddan aan dhigtaa waqtigii fara badnaa xidigaha gelin jiray ee aan fanka gelin jirnay ama habeenimo u badnayd ama dhinacyada nolosha ayaan jecelahay horta inaan geliyo marka laga yimaado taa qodob kaloo muhiima jira oo sababay inaan maxay ahaydey hawshaa ka yar nasto aan waxaan iskahay nin family maana ciyaalkaygu ingiriiskay ku nooleen deganaayeen gebi ahaan waan ka soo raray halkan iminka degan yihiin waxay u baahan yihiin waqti la siiyo waxay u baahan yihiin madrasad la geeyo waxay u baahan yihiin dugsi la geeyo arrimahaasoo dhan waxay keeneen in shakhsi ahaan aan isku wadi kari waayo howlihii kooxday taagnaa mar kasta maalin kasta hawl taagan weeyaan waan ku faraxsanahay kolley toole maxay ahaydey kii qabta waa kii kale rag iga karti badan baa jooga xidigaha geeskuna waa dallad waa dhallinyaro ay hibadu madaysay way jirayaan oo waa isku mabda anu haddaan xilka ka tegin xubinimo kama tegin wixii tale iyo wixii tusaalaan waan la garab taaganahay waxaad ii sheegtay in adigu aad u gudbisay inaad mashquushay oo mashquulkaa darteed aanad hawlihii siday ahaayeen u wadi karaynin maxaa keenay bay kula tahay in iyagu intay warbaahinta ka hadlaan ay yidhaahdaan laab saalax waxaanu ka qaadnay gudoomiyenimadii xeereer baan u jabiyey niyo horta maxay ahaydey dee xilgudasho la-aan bay idhaaheen waana kule saacad kasta hawsha xidiguhu way taagantahay waqtigii fara badnaa 90% ku lumin jiray ayaa meesha ka baxay intaan saragnaa yar intaan howlaha kooxda ka wada hadallaa yar intaan isku nimaadna baryahan aad bay u yartahay anoo waqtigaygii aan dhinacyo kala geliyey laakiin waana rag saaxiibadayoo maxamed axmed bakaali iyo dhammaantood waa raggaan isku midnahay kii qabta waa kii kale wax kale oo intaa dhaafsiisani ma jiraan warbaahintan waxaanu sheegayaa arrintan issue maha wax laysku hayaana ma jirto rag magac wadaa ka dhexeeyaan nahay wax wadalaan nahay wax soo wada bilaabaan nahay wax soo wada aasaasan nahay dadku xurguf iyo isqabasho way timaadaa laakiin arrintani totally wax isqabsashaa iyo murana ma jirto waana idinka mahad celinayaa dee maadsantahay abwaan khilaafaadkiinu kooxda kule dhisan ee Soomaaliyeed ee imaka caanka ee la dhageystatiin fankeeda khilaafaadkiinu inta badan wuxuu noqday sidii fanka oo uu soo noqnoqdaayo isaga laftiisa wala dhageysta dadkii warbaahinta ka daalacdaan maxay kula tahay sababaha aad intaad gudaha uga xallin kari weydeen oo warbaahinta ugu soo baxo oo ay issue laga dhigo neerto wax kasta gudaha ku xallinaaba
wax kasta gudahan ku xalinaa kooxda inta badankood imika way kala mamaqan tahayba talo kasta waanu isla rogrognaa xeerar baanu leenahay wixii soo baxaa inta badan waxa gudaha iyaga iyo dibaddaba sida ugu soo baxaa way yar tahay haddana dee waa dad wada caanahoo kolley tole saxaafaddu deendhagalay ku eegaysaa waxaa laga yaabaa hadalkaa aan saalayn si kalaba loo dhigo markaa wax mushkilada oo jirtaa ma jirto waa dad xidiguhu fan wadaag leh soo wada noolaa saaxiibba ah iminka waanu wada joognay waa saaxiibbaanu nahay ma kala tegano markaa waxaan ka hadlayaa uun fahmay nabigan ugu dambayn mar haddii aad aragtay culays inuu adigu ku saaran yahay wakhtigaagina aad siisay ma jirtaa qoraal rasmiyaha ama is-afgarad aad udu gudbisay oo tidhi sidaasaa jirta oo kooxdii aad u sheegto ku tidhi sidaa igu ogaada dee horta gaargaar waan ku sheegay maasiijina dhammaantood inay cid maxay hayday ay u igmadaan waanu sheegay taasina dee cid kastoo kooxda ka mida dee waad weydiin kartaa inaan iscasilo iyo in laga qaado wax farqi u dhexeeyaaba ma jiraan meel maan wax wada wadnaa inay meeshaasi jirtuun weeyaan way jiraysaa kooxdu way jiraysaa kooxdu waa waxaan ka midaysan nahay dee xilkii iyo kooxdiina way kala wen yihiin wax waqti badan baa naga soo galay tac badan baan soo gelinay way jiraysaa kooxda